galabta waxaa ku soo gabagaboobay garoonka kubadda cagta ee magaalada Hargeysa koobkii degmooyinka magaalada Hargeysa waxaana ciyaar xiise iyo xamaasad badan ku dhex martay garoonkaasi labada degmo ee kala ah Ibraahim Koodbuur iyo Axmed Dhagax oo ah degmooyinkii isku soo baxay koobkaasi ciyaartaasi oo ay ka soo qayb galeen taageerayaal aad u tiro badan oo kala taabacsan labada kooxood ee wada dheelayay ayaa waxa ay guusho hal iyo eber ku raacday kooxdii ku ciyaaraysay magaca degmada Axmed Dhagax halkaas oo ay ka badisay kooxdii ku ciyaaraysay magaca degmada Ibraahim Koodbuur mas'uuliyiinta ka soo qayb galay ciyaartaasi waxa ka mid ahaa wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliland wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha wasiirka xiriirka golayaasha iyo arrimaha dastuurka maayirka caasimadda Hargeysa iyo saraakiil kale oo ka tirsan wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ugu horeyntii waxa halkaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda xiriirka golayaasha iyo arrimaha dastuurka barasaabka gobolka Maroodi Jeex barasaabka xigeenka gobolka Maroodi Jeex iyo maayirka caasimadda Hargeysa ugu dambeyntii waxa halkaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland iyo wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliland degmada Axmed Dhagax iyo degmada Ibraahim Koodbuur labada tiimba waan hambalyeynaa tiimka maanta ku guuleystay degmada Axmed Dhagax ayagana waan hambalyeynaa tiimkii lixda ahaa iyaguna tartanka ka qayb galayna aad iyo aad baan u hambalyeynaa aad waxaan ugu soo gunaananayaa tartanka wasaaraddu soo qabanqaabisay badan buu na siiyey cayaartii si sharaf leh bay u dhacday tiimamka dardaarankii aan soo siinay way qaateen labada degmo tiimamkooda ay ku soo hadheen oo waliba si fiican ay wasaaradda u sheegtay inay labada guddoomiye ay si fiican uga qayb galeen tartankan ayagana waan hambalyeynaa waxaynu iskoognahay in ciyaaraha la hambalyeeyo ciyaaraha asliintoodana la ilaaliyo labada tiim sidii wanaagsan ay u ciyaariyeenna way fiican tahay ugu dambeyntii waxa halkaasi koobkii iyo bilado lagu guddoonsiiyey kooxdii ku ciyaaraysay magaca degmada Axmed Dhagax ee qaaday koobkaasi Axmed Nuur Ciise Maxamed telefishinka bulsho Hargeysa